xalayba iyo habeenadii la soo dhaafayba munaasabada usbuuca xurriyadda Soomaaliyeed wixii uu mudnaa si fiican ayaa looga hadlay hadal ahaan iyo suugaan ahaan iyo sawir ahaan intaba waa lagu cabiray aadaan looga hadlay waxaan rabaa dhowr qodob inaan xoojiyo oo kaliya dabaaldega aan maanta dabaaldegnay wuxuu astaan u ahaa hor u socodka dalkani oo hore u soconayo laakiin in nagu filan ma aha wax badan oo inaan ku dabaaldegno iyo meelo badan oo inaan ku dabaaldegno mudan ayaanan weli lagu dabaaldegin sidaas daraaddeed sida gudoomiyaha golaha shacabka oo ugu dambeyntii uga dhawaajiyay sanadka 2025 ilaahay idankiis meelaha aan maanta ku dabaaldegnay meelo aad iyo aad uga badan ama dalkoo dhan oo xor ah inaan ku dabaaldegno ayaan rajaynaynaa quruxda iyo awoodda iyo muuqaalka san ee maanta aan soo dhignayna mid ka sii ballaaran inaan 2025 aan ku dabaaldegno aan soo bandhigno ayaan rajaynaynaa Soomaaliya in ay cadowga khawaarijta ka xorowda ma ogiya fursad kale oo furan ma laha maalinta ay cadowgaasi ka xorowdana dabarkii ka go'ay si xowli dheer ay u soconay wayna gaaraysaa meeshay u socoto waxaan rabaa sida gudoomiyaha aadan oo halkan uga dhawaajiyay waa ku hadal qabsanayaa baraha bulshada baryahan waxaa wareegaya oo socday dowladda Soomaaliya iyo al-shabaab oo wada hadlayo waxaan rabaa caawa inaan si cad halkan uga caddeeyo wax wada hadala oo annaga shabaab noo dhaxeeya caawa la taagan yahay ma jiraan yaan dadka lagu marin habaabinin halganka iyo dadaalka iyo dagaalka aan ku jirno yaan lagu waxyeelaynin waxaan rabnaa al-shabaab kuwa Soomaalida ana inay u soo noqdaan dalkooda iyo dadkooda iyo dowladooda kuwa aan Soomaalida ahayna inayna dhaafaan oo ay aadaan meelihii ay ka yimaadeen kiisa raba inuu soo noqdo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliya wayna muujisay inay gacmo furan ku soo dhaweynayso ay qaabilayso wiilashii ka soo laabtay al-shabaab ka qoomameeyay wixii hore dhacay dowladda ku qanciyay mabda'aas inay ka tanasuleen una noqonaynin dowladnimaday maanta dhinac uga jiraanba saraakiil amni waaye saraakiil kale oo maamul waaye ilaa meelaha ugu sarreeya dowladnimaday ku jiraan laana waa Soomaali wixii aan isku dhibsanay waa ka yimiday haddee muwaadin uu noqonayaa caadi ah capacity-giisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa ku meel maraya sida muwaadin kastoo kale inuu caddeeyo unbay uga baahan tahay marka waxaan leeyahay wiilasha shabaab weli ku maqan ha ku habsaamina meesha meel lagu sii nagaado kuma taalo shabaab agtiisa arrinka wada hadalka aan wada hadalno waa aan heshiino laakiin dee maalinteediina lama joogo wax dadka wax ka dhaxeeya markay jiraan ay wada hadlaan wax ka dhaxeeya oo ay ku kala aragti duwan yihiin markay jiraan ay wada hadlaan ilaa